بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسور هذا مركلة iyo FPL Soomaali waxay noo soo gabagaboway isbuuc ciyaareedka 38aad oo ahaa isbuuc ciyaareedkii ugu dambeeyay xil ciyaareedka 2020-2021 oo ay ku guuleysatay horyaalka kooxda Manchester City. Kooxda Manchester City ayaa 86 dhibcood ugu guuleysatay horyaalka iyadoo 12 dhibcood ka sareysa kooxda Manchester United oo kaalinta labaad ah. inta aan u guda gelin isbuuc ciyaareedka 38aad iyo Fantasy Premier League waxaan dul maraynaa xil ciyaareedkii 2020 sida uu ku dhamaaday iyo kooxaha sida u kala bixeen. kooxda Manchester City waxa ay 38 kulan ee ciyaartay ay badisay 27 kamid ah, 5 kamidana barbadhac ay gashay, 6 kamidana waa laga badiyay, dhibco gaaraya 86 ay keentay. goolasha in muddadaas ay dhalisayna waxay ahaayeen 83 meel ah iyo 32 laga dhaliyay. kooxda Manchester United ayaa ku xigtay oo 74 keentay. 74 kaas dhibcood waxay ka kala keentay iyadoo badisay 22 kulan, 12 kulanna barbadhac ay gashay, 6 kamid ah kulamadii ay dhashay ee 38 kamid ahana waa laga badiyay. marka la isku dardaro kooxaha afarta sare u soo baxay waxa ay kala yihiin labada kale waa Liverpool oo kaalin saddexaad ku dhameystay iyadoo kulankii ugu dambeeyay 2-0 ku badisay, iyo kooxda Chelsea oo iyadoo laga badiyay kaalinta afraad ku dhameystay maadaama kooxda Leicester City laga badiyay oo 4-2 looga badiyay oo kooxda Tottenham ay ka badisay. sidaasna kooxda Leicester waxay u xaqiijisatay booskeeda Europa League, halka West Ham ay sidoo kale ay badisay oo ay keensatay dhibcihii loogu soo bixi lahaa Europa League. kooxda Leicester City waxay ku guuleysatay FA Cup xil ciyaareedkan, sidaasna booskeeda mar walba banaanka u yaalay oo mid ma ahayn mid shako ku jira. kooxda Tottenham ayaa iyadana u soo baxday booska sreebreebka ee Europa League ee kaalinta 7aad, halka kooxda Arsenal ay u soo baxday koobka cusub ee UEFA ay mar dhow soo kordhisay ee lagu magacaabo UEFA Conference League oo horyaalka Ingiriiska in loo ogol yahay in hal koox oo kaliya ay ka soo baxdo. kaalmaha hoose ee saddexda ugu hooseysa oo horyaalka heerka loogu laabanayay waxaa heerka labaad u laabatay kooxda Sheffield United oo 38 kulan ee ciyaartay xil ciyaareedkan 29 kamid ah laga badiyay, 7 kamid ah oo badisay, halka 2 kamid ah kulamadeedii ay barbadhac gashay, sidaasna ku keentay dhibco gaaraya 23 dhibcood. kooxda kale ee kaalinta 19aad gashay waa West Brom. kulamadii ay ciyaartay waxaa laga badiyay 22 kulan oo kamid ah, 5 kulan oo kamid ah 38 kulan oo kaliya ay badisay, 11 kamid ahna barbadhac ay gashay, waxa ay heshay dhibco gaaraya 26 dhibcood. kooxda kale ee kaalinta 18aad ku dhameystay ee saddexda buuxisay waa kooxda Fulham oo keentay dhibco gaaraya 28 dhibcood. 38 kulan ay ciyaartay 20 kamid ah ayaa laga badiyay, 13 kamid ahna barbadhac ay gashay, 5 kamid ahna way badisay. horyaalkii sidaas ayuu ku soo dhamaaday oo horyaalkii Premier League halkaas ayuu ku soo dhamaaday xil ciyaareedkii 2020-2021. marka haddii aan fiirino marka kooxihii kulamadii la ciyaaray iyo sida ay Fantasy Premier League looga kala qaatay dhibcaha muhiimka ahaa, kulamadii ugu muhiimsanaa waxaa kamid ahaa kulanka Southampton sidaan toddobaadkii hore kusoo sheekeeyay. kulanka Southampton iyo West Ham ay isku arkeen oo Southampton 3-0 lagu gaarsiiyay oo laga badiyay. kulanka kale ee ugu muhiimsanaa waxaa kamid ahaa kulanka kooxda Everton iyo ay isku arkayeen Manchester City kulankeedii ciyaartay Sergio Aguero kulankiisa ugu dambeeyay ayuu ahaa, 2 kamid ah goolasha shanta ahaa ayuu dhaliyay oo waxaa loo sameeyay sawirtin cajiib ah. kulanka kale muhiimka ahna waa Liverpool oo 2-0 kaga badisay Crystal Palace. Leicester City iyo Everton iyo Tottenhamna 4-2 ayay ku badisay kooxda Tottenham. Arsenal oo ayadana boos ka rajeynaysa inay uga soo baxdo kaalmaha ee Europa League maadaama ay ku xirneed in kooxda Tottenham laga badiyo, waxa ay keentay inay 2-0 kaga badisay kooxda Brighton. Chelsea-na 2-1 ayaa lagu badiyay oo kooxda Aston Villa ayaa 2 kaga badisay. sidoo kale kooxaha West Brom iyo Leeds United oo fantasy-ga dhinacaas ay maamulayaasha aad ugu tashanayeen dhibco ayaa ka yimid oo halkaas ayaan hadda u guda galaynaa.
dhinaca Fantasy Premier League ciyaaryahanka loogu kabtan saarashada badnaa usbuuc ciyaareedka la soo dhaafay ee 38 waxa uu ahaa Mohamed Salah oo qiimihiisu uu ahaa 12.9 waxa uu keenay 6 dhibcood oo kaliya waxayna ahayd markii 12 oo uu noqdo ciyaaryahanka ugu kabtan saarashada badan yahay usbuuc ciyaareedka. ciyaaryahanka lagu magacaabo Fernandes oo ahaa ninka labaad ee kabtanka ugu badan la saartay ayaana lagu soo bilaabay usbuuc ciyaareedkan oo maadaama kooxda Manchester United ay leedahay finaalka Europa League tababare Ole Gunnar Solskjaer uu nasiyay Fernandes sidaasna wuxuu ku keenay waxa uu dhibco mu keenin laakiin waxa uu horyaalka ku dhameystay ciyaaryahanka ugu dhibcaha badan FPL-ka xilli ciyaareedkan oo waxa uu keenay 244 dhibcood. ciyaaryahanka loogu soo iibsashada badnaa toddobaadkanna wuxuu ahaa Patrick Bamford oo keenay 6 dhibcood halka Willock oo ahaa ninka ku xiga ee loogu soo iibsashada badnaa uu noqday 12 dhibcood. maamulayaal badan ayaa iska iibiyay Bruno Fernandes laakiin taasi waa ay iskaantay oo fikradoodii ahayd inay iska gadaan way saxsaneed maadaama kulankan aan lagu soo bilaabin oo la nasiiyay. ciyaaryahanka lagu magacaabo Pablo Fornals ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanada farqiga ah ee dhibcaha badan keenay iyo Nicolas Pepe oo asna dhibco badan keenay waxayna hogaaminayeen ciyaaryahanada dhibcaha farqiga keenay. si guud markaan fiirino ciyaaryahanada ugu dhibcaha badnaa toddobaadkan goolhayaha kooxda Manchester City Ederson ayaa keenay 12 dhibcood waxa uu shabaqiisa ilaashaday kulankii Manchester City ay 5-0 kaga badisay toddobaadkan waxa uuna keenay dhibco gaaraya 12 dhibcood maadaama kulan uu rigooro ka badbaadiyay oo meesha 5 dhibcood oo dheeraad uu ka helay 12 dhibcood ayuu sidaas ku keenay. Fernandinho oo kooxda Manchester City muddo badan buu soo ciyaarayay ayaa ahna ninka kabtanka u ah koobkii gacanta ku dhigay waxa uu keenay 15 dhibcood maadaama uu laba caawin sameeyay. ciyaaryahanka kale ee toddobaadkan dhibcaha keenay waa oo dhinaca daafaca waa Chambers oo keenay 12 dhibcood. Chambers wuxuu caawiye ka ahaa gool ka mid ah goolashii Arsenal ay kaga badisay kooxda Brighton. Stevens oo ciyaara kooxda Sheffield United ayaa asna keenay 12 dhibcood. Kofal oo West Ham u ciyaara ayaa asna keenay 10 dhibcood. Fornals oo ahaa ninka ugu dhibcaha badan toddobaadkan ciyaaryahanadii ciyaaray toddobaadkii 38 ee xilli ciyaareedka ugu dambeeyay ayaa 19 dhibcood keenay. Fornals 2 gool ayuu dhaliyay sidoo kale hal caawin ayuu sameeyay sidaas ayuu ku keenay 19 dhibcood. Nicolas Pepe ayaa keenay 16 dhibcood. Nicolas Pepe 2 gool ka mid ah goolashii ee Arsenal ay ku badisay labada gool ay ku badisay aan iraahday ayuu dhaliyay. Sadio Mane asna waxa uu keenay 16 dhibcood. Mane waxa uu dhaliyay labadii gool ay ku badiyeen kooxda Liverpool oo ciyaartii Crystal Palace ay ka hor imaadeen. Bertrand Traore ayaa kooxdiisii hore ee Chelsea gool ka dhaliyay isagoo dhabarka u saaray gool darro xanuun badan Chelsea oo kaalinteedii ay qalqiil gashayba inkastoo ay Leicester laga badiyay sidaasna ay ku soo baxday oo kaalinta afraad ay ku soo baxday. ciyaaryahanka kale waa Gareth Bale waan ka soo hadalnay wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahanadii aan dhahnay toddobaadkan dhibcahooda waxa dhibco badan ay keenan ayaa laga yaabaa isagoo dhaliyay 2 gool oo degdeg ah ciyaartii ay Leicester City iyo Spurs ay isku arkeen 13 dhibcood ayuu keenay. Jamie Vardy oo isna 2 gool dhaliyay 2 gool ee kooxda Leicester ay dhaliyay ayaa isna keenay 13 dhibcood waxa uu ahaa weeraryahanka ugu dhibcaha badan ee isbuuc ciyaareedkii la soo dhaafay. haddii aan fiirino markaa sida loogu kala guuleystay FPL-ka sanadkan maadaama sanad walba maamulayaasha ay ku tartamaan sida ay dhibco ugu keeni lahaayeen xilli ciyaareedkan waxaa ku guuleystay oo kaalinta koowaad galay taageere fantasiga ciyaara wuxuuna taageer u yahay kooxda Liverpool waxaan lagu magacaabaa Michael Keane oo u dhashay dalka Ireland ayaa keenay dhibco gaaray 2680. Michael Keane dhibcihiisa waxaa isbedel ku sameeyay oo si degdeg ah u saameeyay maadaama toddobaadkan uu soo iibsaday Sadio Mane oo 16 dhibcood keenay sidaasna kabtan uu ahaa oo 32 dhibcood u keenay
isagoo labadii saaxiib ee ka horreeyay uu kula tartamayay lambar kaalinta saddexaad ayuu ku jiray ninkan sidaas ayuuna kaalinta koowaad ku imaaday maadaama kabtankiisa uu ahaa Michael Kuhn haddii aan fiirno markaa liigii astaan FPL oo ay saaxiibada in badan ku tartameen oo ay sidoo kale isbuuc ciyaareed kasta lagu bixinayay guuleystaha lacag lagu bixinayo oo abaalmarino kala duwan lagu bixinayo haddana la rajeynayo in ninka guuleystaha ah ee kaalinta koowaad galay in abaalmarin cajiib ah lagu doonsiiyo liigaasi waxaa ku guuleystay ninka lagu magacaabo Cabdirasaaq James oo keenay 70 dhibcood isbuuc ciyaareedkan markii si guud isku darna waxa uu keenay 1914 dhibcood Cabdirasaaq James waxa uu ciyaaray jibaarka bench boost oo uu sidaasna waxa uu ku keenay 70 dhibcood ciyaareenka Saalax ayaa kabtan u ahaa sidoo kale weerarkiisa waxa uu ahaa Kane oo 10 dhibcood u keenay Alexander Arnold oo kale ay difaac iska galiyay ayuu kaydka iska dhigay aan raahday Bell ayaa kamid ahaa ragga dhibcaha badan u keenay sidaasna waxa uu ka helay dhibco gaariya 70 dhibcood sidoo kale laba transfer ayuu sameeyay oo wuxuu keensaday Bell iyo Azpilicueta iyo wuxuu keensaday ninka lagu magacaabo Alexander Arnold sidaasna wuxuu galay dhibcaha ilaa 4 ah laga jarayo qofka marka uu sameeyo isbedel dheeraad markuu sameeyo ninka ku soo xigay waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Maxamed Muxiidiin oo keenay 1912 dhibcood maamulahani waxa uu ahaa ninka inta badan hogaaminayay oo liiga inta badan hogaaminayay 51 dhibcood ayuu keenay oo isbuuc ciyaareedkan ayaa waxaan isleeyahay hoos u dhaca weliba bedelka uu sameeyay ishaga uu 4 looga jartay ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelatay oo waxa looga qaaday kaliya 2 dhibcood oo kaliya ayaa looga qaaday hambali aan leeyahay ninka kaalinta labaad soo galay oo muddo badan kaalintaasi kaalinta koowaad in badan soo haystay sidoo kale waxaan u hambaleynayaa ninka kaalinta saddexaad soo galay oo Cabdiqaadir Odwaa lagu magacaabo asna waxa uu keenay 1895 dhibcood ayuu keenay si guud hambali Cabdirasaaq James waxaa noqotay guuleystaha FPL-ka astaan xilli ciyaareedka 2020-2021 dhinaca FPL Somali oo channelka saaxiibada ku xiran sidoo kale waxaan ugu talagalay inay ayagana ku tartamaan oo waxaa jira maamulo ku guuleystay oo kaalinta koowaad soo galay inkastoo gadaal kaga soo biiray haddana dhibcihiisa xilli ciyaareedka inta badan uu keenayay ayaa muujiyay in kaalmaha hore uu soo galo ninkaas waxaa lagu magacaabaa Maxamed Faarax waxa uu keenay 2339 dhibcood ayuu keenay dabaadkan waxa uu ciyaaray waxa uu keenay 51 dhibcood ayuu keenay ciyaaryahanadiisa ugu dhibcaha badnaa waa Kane oo keenay 10 dhibcood oo sidaasna uu ku keenay 20 dhibcood kabtan maadaama uu ahaa Robertson oo ay sheegasna ugu jiray oo 8 dhibcood keenay Mahrez ayaa kamid ahaa asna 6 dhibcood keenay intaas ayaa laga xusi karaa inta kale dhibco saas u badan meena keenin Bamford ayaa kamid ahaa asna 6 dhibcood keenay oo kamid ahaa toddobaadkan dadka si fiican dhibcaha u keenay ninka labaad ee ku soo xigay oo asna aan hambalyan leenahay waa Cabditaal Miir waxa uu keenay 2330 asna 9 dhibcood ay kale ayaa laga qaaday oo waxa uu ahaa in badan hogaaminayay liigan FPL Somali marka saaxiibayaal aad ay mahadsantihiin runtii waxa uu ahaa xilli ciyaareed aad u xiiso badan oo waxyaabo badan aan aragnay muhiim ah ayna mar walbana ay la dhiirigelinayso in aan aragno saaxiibada oo aad u waxfaaltamaya liigana runtii waa waxa uu leeyahay xaraarad gooni ah oo dadka ku xiran oo ishag ciyaar aad ay maartay ugu u xiiseeyaan saaxiibada waxaan leeyahay maadaama xilli ciyaareedku u dhamaaday weli waxaa jira waxyaabo badan oo aan rabno inaan ka hadalno oo aan soo bandhigno sida suuqa kala iibsiga sida ciyaaryahanada FPL-ka loo kala qaadanayo iyo weliba dhinacyada horyaalada kale ee dibadda waxyaabaha ka dhacayo suuqa kala iibsiga mar walba dhinacyo badan ayuu saameeyaa meelahaasna waan ka soo hadli doonaa wararkaasi waxyaabaha la xiriira haddii aad sidoo kale weli aadan kusoo biirin YouTube-ka fadlan subscribe saar oo notification-ka furo dhinacyada Facebook-ka Twitter-ka iyo Instagram-kana si joogto ah ayaan wax ugu soo daawacnay halkaasna mar naga soo fiiri insha Allah aad iyo mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.